munaasabad ballaaran oo si weyn loo soo agaasimay oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay ardayda dhammaysatay quraanka kariimka oo ka qalin jabisay markiiska Imaamu Dahabi ee magaalada Burco. munaasabadani lagu guddoonsiinayay ardayda dhammaysatay quraanka kariimka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimada diinta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. waxaana munaasabadani ka hadlay maamulaha markiiska Imaamu Dahabi oo ka sheekeeyay marxaladihii markiiskani soo maray. markiiska Imaamu Dahabi aad ka tirsan ama farac ka ah markiiska weyn joogno ee Imaamu Shaafici. markiisku wuxuu soo saaraa ardaydaas waxay isku jirtaa laba qaybood. markiisku uu la macaamilay qayb waxay dhigtaan culumta mawaadiga ee shariicada islaamka ay dhigtaan, qaybna waxay dhigtaan quraanka. oo saddex dafcadood ayuu markiisku soo gudbiyay markiiskiisa farac ka yahay. geesta kale waxa iyaguna ka hadlay munaasabadani Sheekh Cali Warsame iyo Sheekh Mustafa oo iyaguna bogaadiyay ardaydani ka qalin jabisay markiiska Imaamu Dahabi. ama korka ka haya ama kitaabka akhriyo waa inaad yeelataan daa'iman qof waliba waa inuu yeesho xisbi ama juz ama in ka badan inuu ku dadaalo inuu yoomiyan uu quraanka aanu fadraan kala goynin. marka sidaasaa ilaahay ku barakaynaya uu qofkaas arkay inuu fahmayo inuu isiraado walaa culimana uma baahnid adigu waa isku filan tahay inta quruur ku dhaco oo marjiicadii culimada ee loo noqonayay meeshii ka baxdo dhalinyarada markaa dabeedna waxa yimi in badan oo ka mid inay inxiraaf ku dhacday yani iyagoo cilmi ku filan aan lahayn inay camal kasta oo damcayn dalaq iska yiraahdaan. iskii risaaladu ay lahayd ama muhiimadii ay risaaladu lahayd oo waxa nabiga loo soo diray sallallahu alayhi wasallam waxa uu cuslaa ee muhiimsanaa waxay ahayd quraanka kariimka ah. shaqadii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam loo soo diray iyo wixii loo soo diray intuba waxay ku urursantahay waa quraanka kariimka ah ee u sii subcin lahaayeen ee markaskii ku xidhnaan lahaayeen ee culumta sharciga kale u sii kordhin lahaayeen inay in badan ka shaqaysaan idinka ayaa halkeedu miisaanaya. معلمكم أقر شرفا فاذكروهم وادعوا لهم ثبوتا أي البنات ختموا قرآنا لا يكفي ختمه ولكن تطبيقا لمعاهدنا من ليس له مثلا. si kastaba ha ahaatee waxa ugu dambeyn shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyey ardaydani ka qalin jabisay markiiska Imaamu Dahabi. waxaa macahadkani Imaamu Dahabi yahay macahadka ugu tayada fiican gobolka Togdheer. maxamed farax bilo wararka shabakada caalamiga Ictiraaf gudaha magaalada Burco.